filimkan wuxuu ka bilaabanaya gabadhii la dhaho Ifa waxay xasuusanaysaa waagii ay wada noolaan jireen iyadii aabaheed Jeffier aabaheedayse kordhin waxaad u egtay walaasha laakiin iyadu ma xasuusto walaasheed waxa kaliya ta haysata waxa weeyaan balariina taageera lagu ciyaaro habeennimadii ayaa lasoo weeraraya Jeffier waxaanu ogaanayaa inay wax walba khaldeen wuxuu bilaabay inuu mid ula dagaalamo wuxuu u tegay Ifa waxaanu ku dhahayaa xasuus waxaan ku baray waxaana si aamusan raacaysaa amarada aabaheed wayna isqarinaysaa waanu la dagaalamay intaas karaankiisa laakiin ugu dambeyn waa laga adkaanaya waxaa imaanaya hogaamiyihii weerarka ku soo qaaday waxaanu ku odhanaya waxaan ku ogaanay inaad guursatid gabadh reerkaaga mid adigoo kale ah laakiin taas nagumada abaalgudin waxaanu ku odhanaya waxaana adiga lahayn ayaad soo qaadatay xaaskaagina way dhimatay si adiga qaladaadkaaga u soctay Jeffier ayaa dhiig ku tufaya Ifa musnaa ay wax walba ku daawanaysaa Jeffier waxaa la siinaya doorasho ah inuu isagu isdilo oo ay gabadhiisu badbaado iyo inuu ninkan dilo oo isaga iyo gabadhiisu dhintaan laakiin Ifa ayaa qaylinaysa markaa taas ay aragtay Jeffier wuxuu bilaabay isagu dagaal mana doonayo inay gacanta ku qabtaan Ifa iyaduna way soo baxaysaa xabad waxay ku dhaysaa mid ka mid ah raggii weerarka soo qaaday si ay u caawiso aabaheed Ifa iyo aabaheed waxay u cararayaan banaanka Jeffier intuu sii socday wuxuu sii daarayaa bam laakiin intuu sii socday ayay xabad ku dhacaysaa bamkii uu qarxaya waxaana ku dhimaya kooxdii weerarka soo qaaday marka laga reebo hogaamiyahoodii xabadaas ku dhacday darteed Jeffier wuu dhimanayaa intaas kadib waxaa soo muuqanaya nin la dhaho Winston Scott wuxuuna u yimi in la kulmo Ifa waxaanu yidhi wuu naqaanay aabbaha waxaanu kuu doonayay nolol xor ah taasoo isagu weliga aanu arkin laakiin se hadda markuu baxay wax kasta way isbedeleen Scott wuxuu yidhi waxaan kuu geyn karaa qoyska aabbaha waana ku daryeeli doonaan waxaana laga yaabaa in maalin qoyskaga noqdaan Ifa waxaa la geenayaa meel la dhaho Rooska Roma waxaana islaantaasi u sheegaysaa Ifa in dadkaasi nolosheedii hore xadeen iminkana inaanay ogolaan in nolosheeda dambe xadaan Scott wuxuu siinayaa Conis waxaanu ku dhahayaa markasta diyaar ayaan ku ahay gabadhana lagu magacaabo Noogi waxay u sheegaysaa inay aabaheed taqaanay waxaana ka odhanaysaa aabbaha wuxuu ka mid ahaa Rooska Roma sida adiga haddana noqonaysa oo kale taatoo ayaa dhabarka ku leedahay sidii aabaheed oo kale islaantan ayaa ka odhanaysaa dhaawac lugtaada iska dhig si aanad infekshan u qaadin Ifa waxay leedahay hal saaxiib oo lagu magacaabo Tatiana Ifa mar walba waxay guuldaro kala kulmi jirtay ragga balse Noogi ayaa ka odhanaysa mar walba waxaa noqon doontaa mid ka deeqaysan wiilasha Noogi Ifa waxay u sheegaysaa inay beddesho ciyaarta Ifa waxaa bilowday inay wiilasha qaracdo laakiin maalin maalmaha ka mid ah ay dareentay inay saaxiibta Tatiana aanay joogin waxaana u tegaysaa agaasimaha Rooska Roma waxaana u sheegaysaa in Tatiana aynu u qalmin inay ka sii mid ahaato Rooska Roma waxaana ka odhanaysaa ma haysta iyadu waxaad haysato carruurnimadu waa laga xaday Ifa ayaa ka odhanaysa hagaag maxaad ii colinaysaa iyadoo lagu odhanayo wakhtigaagi way gaadhay waxaana loo soo wadaya Ifa tababarkeeda u dambeeyey halkaasoo loo keenayo qof aanay hadda u baahnayn Rooska Roma labadooda waxaa yaala qoryo kala daadsan qofkii iska hor rakibtaa wuxuu kala jaanis ugu helaya inuu dilo halkaasoo kii wax dilay uu guulaysanayo waxaa soo muuqanaya John Wick Ifa ayaa ka odhanaysa see meesha noga baxa waxaana kale ka odhanaysaa waxaa adiga samaysay sidee u sameeya isagoona ugu jawaabaya waad bilowday Ifa waxaa loo diraya shaqadeedii u horeysay iyadoo loo sheegaya inay difaacayso Kayla Park si aanay security ku qaban waxaa loo dhiibayaa baaskoolada ay xabadeedu yihiin plastic waxayna imaanaysaa kalaabkii si ay u ilaaliso laakiin isla markaas dad kale ayaa ka soo agdhowaanaya Kayla waana soo hor istaagayaan mid ay ula dagaalamaysaa ilaa ay ka disho waxaana u sheegaysaa inay safe tahay hadda Ifa waxaa hadda lagu sawirayaa taatuuga Rooska Roma waxayna arkaynaa inay sheekadu nala dhaqaaqday 2 bilood kadib Ifa hadda waxay noqotay dilaa waxay mid ka mid ah ragga ay disho waxay ku arkaysaa calaamadii raggii dilay aabaheed ay wateen Ifa ayaa gacanta ka jaraysaa ninka calaamadda watay waxaana u geynaysaa agaasimaha Rooska Roma iyadoo weydiinaysaa waxay calaamadan Ifa waxay u sheegaysaa inay yihiin dadkii dilay aabaheed agaasimo wuxuu ugu jawaabayaa ma ogtahay cid ay yihiin dadkani waa bilaa naxariis waxaana naga dhexeeya balamo hore shaqadeena ma farageliyaan toodana ma faragelin doono ka fogow iyaga ma awoodin inaad hesho haddii aad isku daydo laakiin Ifa may dhegaysan waxaana aaday Hotel Continental si ay ula kulanto Scott Ifa waxay weydiinaysaa dadka calaamadaas leh waxay tidhi agaasimo mar hore ii digay marka dad wax garanaysa fadlan ii sheeg waxay u soo celinaysaa Coinskii uu siiyey markii ay yareed isagoo weli u raaciyay markasta diyaar ayaan ku ahay inaan ku caawiyo wuxuu u sheegayaa dadkan ay qabiil yihiin dadkana waxay u dilaan si kibir ah hadda mid ka mid ah wuxuu digay qayb kale hotelkeena ah ninkaas magaciisa waa Daniel Bain Daniel wuxuu haystaa lacag dhan $2 milyan waxaanu hadda ku sugan yahay qolka 315 Ifa waxay qaadataa macluumaadkii Daniel Bain marka xagga marna waxaan arkaa inaad weli subscribe saarin waxaanay tegaysaa hotelka uu joogo Daniel Bain hotelka qaacidadiisa ayaa ah in wax rabshadaha laga kicin karin gudaha hotelka laakiin Daniel Bain waxa isha ku hayay dad kale Ifa ayaa ka soo baxaysa qolkeeda iyadoo u socota qolka Daniel Bain intaysan Daniel saarkin waxaa ka soo hor muuqanaya inantii siireed gabadha yar ayaa ku odhanaysaa waxaad u socotaa inaad disho aabahay isla markaa Daniel Bain ayaa qoriga ku soo taagaya Ifa kadib waxaa ogaanaa inuu dadkii la shaqayn jiray Daniel hotelka hareereeyeen waxaanay doonayaan inay dilaan Daniel oo ay gabadhiisana ka haystaan
kadib Daniel Bain waxaa dul saaraya madaxiisa $4 milyan si loo dilo waxaana la soo weeraraya Daniel Bain. Daniel wuu baxsanaya isagoo weliba gabadhiisa badbaadsanaya. waxaanu arkaynaa Daniel oo isoo weydiinaya caawimo, wuxuuna u sheegaya inay ku caawiso gabadheeda inuu xagan ka saaro. Ifa way ogolaanaysaa waxaana bilaabaysaa inay kaxayso gabadheer. sidoo kale Daniel wuxuu la dagaalamaya kuwii weerarka soo qaaday. intaas kadib Daniel waa la dilaya. Ifa waxaa laga qaadanaya gabadh yareed. intaas kadib Lana waxay wacaysaa madaxeeda Chancellor waxaana u sheegaysaa inay hayso gabadh yareed. waxaa kaloo ugu daraysaa inay gabadh kale jirto oo gabadheeda difaacaysay. Ifa iyo kuwii kale naftooda u shaqaysanayay waxaa soo qabanaya ilaalada hoteelka. Ifa ayaa u sheegaysa in wax sharci ah aanay jebin laakiin dadkana ay jebiyeen. Ifa oo la soo fasaxaya kuwii kalena waa la dilaya. waxaa loo sheegayaan in si degdeg ah ay uga baxdo hoteelka. intaas kadib Ifa waxay u tegaysaa nin iibiya hubka halkaasoo dhowr hub oo kala duwan ka iibsanayso, laakiin iyadoo hubinaysa qoryaha ayaa si lama filaan ah loo soo weeraraya. ganacsadaha hubka ee Frank iyo Ifa labaduba waxay isku dayeen inay baxsadaan. Ifa gacanteeda waxay ku soo qaadanaysaa dhowr bamba ah waxaana ku tuuraysaa tiimkii soo weeraray. intaas kadib Frank ayaa raggan calaamadsan u sheegaya xagga joogaan Ifa. Ifa waxay qaadanaysaa baabuurkeedii isla markaana dib meesha waxa soo qaraacaya agaasimaheeda iyadoo u sheegaysa inaysan aadin meesha waxaanaad halis gelinaysaa qoyskan oo dhan. laakiin Ifa hadalkaa may dhegeysan. waxay arkaysaa alaabta lagu ciyaaray Berlin iyadoo xasuusanaysa caruurnimadeedii. isla markiiba nin ayaa u imaanaya waxaanu soo weeraraya Ifa way la dagaalamaysaa waxaana ka jebinaysaa gacanta wayna dilaysaa. laakiin aagoo dhan waxaa ka buuxa dad ka mid ah qabiilka. xataa cunto kariyaha ayaa isku dayaya inuu dilo Ifa. Ifa waxay ku xidhaysaa cunto kariyihii qolka qaboojiya. isla markiiba dad badan ayaa ka imaanaya dibadda si ay u dilaan Ifa. dhammaantood way la dagaalamayaan. Kooga ayaa ka soo baxay qolka Ifana way dilaysaa ugu dambeyn. kadib nin kale la dhahay ayaa Chancellor u sheegaya gabadhii ilaa imika inay nooshahay. Chancellor ayaa u sheegay in la daaro borotokoolka si loo ogaado inay khatar soo wajahday. carruurta dhan ayaa lagu amraya guryaha inay galaan dhammaantood. dadkii waaweynaan oo dhan waxay u soo baxeen inay u gaarsadaan Ifa, taasoo ka dhigan qof kasta magaalada ku nool inuu raadsan doono Ifa. kadib way ka bateen wayna qabteen Ifa waxaana la ogaaday inay ka tirsan tahay rooska Roma. kadib waxaanu ogaanina gabadha yar ee Ella inuu uu yahay Chancellor. Lena ayaa soo gashay iyadoo u sheegaysa wax ku saabsan Ifa, iyadoo u sheegaysa inay kasoo jeedo rooska Roma. intaas kadib Chancellor wuxuu tegaya Ifa waxaanu sheegaya in rooska Roma ee heshiis kala dhex yaalay inaanu midna midka kale farahan soo gashan. laakiin Ifa waxay u sheegaysaa inaanu soo dirin rooska Roma. waxay u sheegaysaana inay aabaheed dileen oo ay nafta dhaafiyeen waxaana isku dadeen inaad iga fogeysaan. waxaanu yimid inaan iga argoosto. Chancellor ayaa iyada gartay markiiba wuxuu sheegayaa Lena gabadhaas inay tahay walaasheed ka yar. Ifa ayaa weeraraysa raggii qolka ku ilaalinayay. Lena waxay dabagelaysaa Ifa waxaana u sheegaysaa in labadooda xaggan ay ku wada dhasheen. waxaana ka odhanaysaa ugu dambeyn guriga ayaa timi. waxaana u sheegaysaa in hooyada qayb ka ahayd qabiilkan laakiin aabbaha ka yimid rooska Roma. waxaanu isku dayay inuu kaga fogeeyo qabiilka. maalinta Chancellor wuxuu yimid inuu dib u ku soo celiyo. waxaan arkaynaa in la soo hereeriyay qolka ay ku jiraan. Chancellor wuxuu amrayaa in la dilo labada gabdhoodba. waxay ku soo tuurayaan qolka bambooyin. Ifa way ka badbaadaysaa qaraxa laakiin Lena kamay badbaadin. Lena markii dhimanaysa Ifa ay ku odhanaysaa waan kugu xiisay. markii taas aragtay Ifa caradeedii way sii laba jibaarmaysaa. waxay bilaabaysaa inay sii naxariistaraaga ugu qaraacdo raggii soo weeraray. Chancellorna waxay u sheegtay inay dili doonto isaga. markaas Chancellor ayaa qaraacaya agaasimihii rooska Roma isagoo u sheegaya inay joojiso iyada. laakiin waxay odhanaysaa aniga ma celin karo laakiin qof celiya ayaa soo diraya. waxaana u raacinaysaa inaanu ciidankiisu soo faragashan iyaga. Chancellor wuu aqbalaya waxaanu u sheegaya inay haysato ilaa safar dhexe. agaasimihi wuxuu u dirayaa markaas John Wick si uu tirtiro Ifa. John Wick wuxuu soo gelayaa magaalada. Ifa ayaana ka hor imanaysa isagoo u sheegaya inay ka tagto xaggan. Ifa waxay ugu jawaabaysaa inaanay ka tegin xaggan. rasaas ayay ku bilaabaysaa. John Wick ayaa si degan ugu sheegaya inaan loo baahnayn inaad tan samayso laakiin ma dhegeysanayso Ifa. waxaanu arkaynaa inuu John Wick ka xoog badan yahay Ifa laakiin John Wick ma doonayo inuu dilo iyada. Ifa ayaa u sheegaysa inuu dilay aabaheed waxaana ka dalbanaysaa inay tan dhamayso. John Wick ayaa ka aqbalay midaas isagoo u sheegaya ilaa in ay haysato sakhra dhexe. intaas kadib waxaa soo baxaysa Ifa inay hogaamiyaha disho. waxaanu arkaynaa Ifa oo nin wejigiisa ku xidhaysa bam kadibna ay ku qarxinayso. ku maqlay Chancellor wuxuu amar ku bixinaya in la dilo Ifa. magaalada dhanna iyadii ayay raadinaysay. waxay gashay qolkii hubku yaalay. askartii soo daba kacday ay ku shiday hubka dabku ka baxayo. nin kale oo dhaho Dhigis ayaa isaguna soo qaadanaya hubka dabka ka baxayo kadibna isku adeegsanayaan dabka. ugu dambeyn waxay iskula tegayaan gacanta. Dhigis uu ka xoog badan yahay Ifa. Ifa way ka soo baxsanaysaa Dhigis. nimankan ayaa Chancellor kula talinaya in magaalada ka baxo. Chancellor ayaa u sheegaya in 200 sano hal hogaamiyo naga mid ah aanu ka tegin halkan. laakiin xaaladdu gebi ahaanba faraha way ka baxday. Chancellor wuxuu ka xaysanayay inantiisii. sidoo kale Ifa weli Dhigis kama hadhin. nasiib xumo shidaalka hubka ayaa ka dhamaanaya Ifa. Dhigis wuxuu ku shidayaa kiisi waxaanu weeraraya Ifa laakiin nasiib wanaag Ifa waxay heshay tuumbo biyo ah waana iskaga hor imaanayaan tuumbadii. uumi ka dhashay iska hor yimaadka ayaa labadaba dhulka ku dhufanaya. Dhigis ayaa si degdeg ah hubkii la soo dul istaagaya Ifa laakiin John Wick ayaa kor ka soo tookanaya oo dilaya Dhigis. waxa kaliya ka hadhay waa 4 daqiiqo sakhda dhexe.
Eva hadduu waqtigaas ka dhaco beddelkeeda iyada la dilayaa haddii dili weydo Chancellor waxaa la soo weerarayaa John Wick. Eva sidoo kale waxay heshay baabuurka Chancellor rasaas ayay ku furtay waxaana uu soo baxay dibadda waxaanu ku oranaya ma awoodid inaad badbaadiso Ella waxna isma beddelayaan waxaasoo dhanna waxay ahaan doonaan sidoodii adiguna waxaa tahay dilaa. Eva way dilaysaa isaga waxaanay ka soo kaxaynaysaa Ella agaasimaha ayaa weydiinaya John Wick way dhimatay laakiin wuxuu ugu jawaabayaa uu dhintay. Kadib waxaanu arkaynaa Daniel Bean oo nool. Eva waxay timi hotelka Continental waxaanay daawanaysaa bandhiga faneedka Ballerina isla markaas qof kasta wuxuu ogaanayaa in abaalmarinta Eva ay gaadhay $5 milyan taasoo ka dhigaysa saddexda qof ee lagu doonista badan yahay filimkana wuxuu ku dhammaanayaa adigoon weli saarin like subscribe aan dhihin. Wassalaamu calaykum.